قصة جعيل oo murugo badan adduunyadu waa imtixaan waa dhibaato iyo murugo badan tahay dadku iska si uma wajahdo waxayna qof waliba ku qaabishaa waji gooni ah qaar baa farxad iyo reereen ku qaata waqtigooda inta badan halka ay kuwa badan la nool yihiin murugo iyo ciir iyo ulkutaal carraan dhamaad lahayn qisadani waa qiso dhib ah oo ka dhacday Soomaaliya qaas ahaan gobolada dhexe ee Soomaaliya waana qiso aad u xanuun badan aan ugu maadaray laan jacayl waa loo dhintaa haddaba daawada si fiican u qisadani xanuunka badan iyo sida ay wax u dhaceen Axmed Yare wuxuu kamid ahaa ardayda wax ka barata dugsiga Al-Cimra ee magaalada Beledweyne waxaana maalin maalmaha kamid ah ay isbarteen gabar lagu magacaabo Suleeqa oo iyadana kamid ahayd gabdhaha wax ka barta isla dugsiga isla markaana dhigatay fasalka ama galaaska ka hooseeya Suleeqa iyo Axmed barashadoodii kadib waxa uu dhaxmaray jacayl xadaaf ah oo midba midka kale u qaaday ilaa iyo dhammaan laga ogaaday iskuulka macallimiintana ay ka war helaan xanta jaceylka lamaanaha waxaana ay noqdeen kuwa iyaga si gooni ah isku tixgeliya markastana wada jecel in ay waqti isla qaataan waxaana caashaqo midba midka kale uu qabo uu gaaray in hadii ay isla joogin la iska maqlo teleefanka nin adduunyo joogo maxaa aragti ku laaban Axmed iyo Suleeqa waqtigoodii aasaaska jaceylkooda wuxuu ahaa waqti mid u heeliya iska dhaafay in xitaa ay dhibaato arkaan saacadna iskuma dhaafin inay ismuqluusadaan oo ay murmaan waayaha adduunyada kulli waa cibaare cadceedda bidhaantiyo waxay caan ku noqotay lamaanahani waqtigooda hore iskula jecel xididada mutay oo ahdiyo aaminaadna ay lagu hinsimay muddo 3 sano ah kadib maxaa dhacay waxaa la isla meel dhigtay in geedkii jaceylka ee muddada badan la waraabinayay laama wax lahna soo baxsaday in mirihiisa la gurto Axmed Yare iyo Suleeqa ayaa isku afgartay in ay reer wada noqdaan oo ay qura wada galaan waxaana Axmed uu Suleeqa ka codsaday in ay fursad siiso si uu waalidkiisu u wargeliyo isagoo islaha waa bishaaro cusub hase yeeshee Suleeqa waa ay ka aqbashay laakiin maxaa dhacay Axmed Yare iyo hooyadii maxaa dhaxmaray Axmed oo ahaa agoon aabihii geeriyooday isla markaana ahaa kan ugu weyn ama curadka reerka wuxuu aaminsanaa in hadii ay hooyadii uu sheego arinta ay tahay mid ay ku farxayso laguna taageeri doono Axmed Yare wuxuu u yimid hooyigii uu ka degnaa xaafada Kooshin ee magaalada Beledweyne wuxuuna durbadii uu bilaabay in uu la faqo hooyadii uu arintii u bandhigo hooyo sareedo oo ahayd Maamada Axmed ayaa u sheegtay in arinkaasi uu yahay mid wanaagsan uu barabo in uu guursado iyaduna ay jeceshahay laakiin ay hore ugu doontay Nasro oo ay habartiis dhashay isla markaana ay Suleeqa isku fasal yihiin laakiin se aysan u sheegin hore Axmed ayaa durba bilaabay in uu ku cataabo hooyadii kana codsaday in ay iska hilmaamto Nasro ee ay ku taageerto jaceylkiisa uu rabo in uu la aqal galo ninba waayihiisa waala loo tumaa laba kala barisay kala warla hooyo Siraad ayaa u sheegtay wiilkeedii Axmed in loo taliyo uu qaato talada waalidkiisa marna aysan Nasro mooyee qof kale uusan nolosha la qaybsan doonin Axmed wixii habeenkaasi kadib waxa uu bilaabay jabi murugo iyo fakar ku dhisan habeenkii maladin ilaa waaga soo guduuto waxa uu Suleeqa u sheegay in arintii ay waalidkiisa kaga gacan sareen waxaana isku calaacal kadib la isla meel dhigay in aan la kala maarmin oo aan nafta la isku hurayo Axmed ayaa teleefanka ku wacay Nasro uuna sheegay waxa taagan bal xageeda si uu ciirsi uga helo hase yeeshee waxay u sheegtay inay hore u diiday laakiin ducay habaar la hordhigay oo ay arintu tahay laba daran mid dooro ninkii dan leh madaalo Axmed Yare waxa uu mar kale ku soo noqday hooyadii Siraad oo inta uu garka iyo jilbaha qabsaday ka codsaday mar kale taageero jaceylkiisa laakiin maama Siraad waxay Axmed u sheegtay in maalinta biri ah ma haysa dambe uu aqal galayo warkii hore war soo dhaaf Axmed waxa mar kale u bariyay waa cusub waxa uu hooyadii u sheegay in aysan dhici karin uu dunida ka tagayo hadii aan arintiisa loo meel dhigin hooyo Siraad ayaa intay dhoola cadeysay ku tiri waa lagu taliyaa adiga matalisid waad u jeedaa daawade arinta ku cakiran Axmed Yare hadii aad fikir iyo talo heeso qaybta faalooyinka noo soo dhig talawaati alla taadana waa loo baahan yahay hadii aad qisatan laceen heeso ama mid u dhigmata noogu soo dir qaybta aan ku leenahay baraha bulshada ee Instagram-ka iyo WhatsApp-ka aad description-ka ka daalaca kartaan mahadsanidin